السلام عليكم أصحابتيدا soo dhawaada markaleenta walaashin Fariida idin soo laabatay maxaa heesiin warkiisiya maalmahan waa dhaqaaqoosiin maasha Allah dhaqaaqiinana janalka waa laga dareemayaa laakiin aad uma sii xoogano soo waxaa la idinka rajeynayaa inaad si xawliya ku socotiin insha Allah daraad waxaa daawaday muuqaal cusub oo markaas Atriisha ay soo gelisay janalkeeda waxaana waday ayadii odaygeeda waxaan uga hadlayeen muuqaalkaas xaaladihii ee muddooyinka ugu dambeeyay ee ku sugnayd Atriisho iyo culaysyo iyo dacaayad ay kala kuntay dhanka bulshada horta gabadhan waxa ogaayaan ayadoo lagu heesto oo la dhahayo hooyo waaye ilmay dhashay hore ilmaheeda inkiree gabar iska dhigay waxaas yacni oo gabdho kale oo Malaysia la joogaan ay ku heesteen suuqa ay u soo geliyeen ayaan kaleeba anaka way noo fududahay markaa wax sheegayno inaan wax iska dhahno wixina aan ka sii socono laakiin marna ma ogin saameynta iyo waxyeelada ay u geysanayso qofkii aan waxaas ka sheegnay hadda gabadhan waxay sheegtay in markii tookadii hore ee uurka ilmaha hore ee bulshada kala kunta dhibaato iyo eedeyn oo la leeyahay caruur baa iska dhigaysaa hooyaa tahay ilmo horaa lahayd waa inkiraysaa wax badan yacni oo la isla dhaxmaray een aad u saameysay balse ay ka soo kabsatay kana socotay haddana mar labaad ee Ilaahay wax siiyay oo uur ay yeelatay kadibna uurkii markay soo bandhigtay oo haddana sidii oo kale mashaakilkii hore uu ku soo furmay oo aad yacni bulshadii uga daba qaateen in ku dhaheen hooyo yacni hore u ahayd ilmahaaga hore dafirtay kana ka dhacday dadka way iska hadleen dadkii hore gabadhan barnaamijkaas uga sameystayna way ka sameysteen way iska socdeen laakiin waxay u geysteen gabadha dhibaato aad u weyn sida iyadaba ka sheekeynayso in uurkii walaac ka qaaday ee xataa dhakhtardeeda ku dhahday maxaa u walaacsan tahay maxaa dhibka ku haysto kadibna u sheegtay dhahda caqabado noocaas ah social media ay haystaan sida ani xaqiiqsaday waxaa jiraan dad badan oo baraha bulshada ama ku jiraan ama yacni iskala socdaan arrimahooda oo indho ku garaadle ah wixii loo sheegay hore ka qaadanayaan hore ka rumaysanayaan hore qofkii kaga ataagayaan ka weerarayaan ka dhibaateynayaan runtii markaa caan tahayna dadka noocaas waxaa u noqonaysaa dakana ma la dhihi jiray mise dhibana u noqonaysaa dadka noocaas sida gabadha miskiinta haysatay oo kale wayna adag tahay markuu qofku xaamilo yahay inuu waxaas oo barashar uu xamilo because qofkii hore hooyo u noqdo wuu garan karaa qofka markuu xaamilo yahay asagaaba iskiis yacni hormoonkiisa iyo waxyaabihiisna iskugu dhex qasan yihiin haddana markuu qofkii argay sawiradiisii oo labadoo been laga sheegayo haddana laga nabanayo culays badan uu sii dareemayaa ayadoo been laga sheegayo oo haddana lagu nabayo oo nabyada xanuunkeeda la ogyahay haddana wixii la faafinayo wax yacni qof intuu meel kugu dhaho ka tagay ahayn adduunka lagaaga gudbinayo dhibaato aad u weyn ay leedahay gabadha miskiintaana dhibkaas aad ku badan soo xamishay ummadii dhibkaas suuqa u gelisayna korkooda ayaga ahaato kulay ayadana waxaan rajeynayaa kasoo kabsatay kulay waxay ahaayeen dad xaasid ah oo nolosha quruxda badan Ilaahay uu siiyay ka xun aragnaba maasha Allah oo marqaati ka nahay gabadhan iyo odaygeeda waa dad aad iyo aad iskugu faraxsan alwaysna odaygeeda waa nin jecel inuu gabadhan farxad siiyo oo bulshada horteeda yacni ku muujiyo qiimaheeda iyo wanaageeda way jiraan dad kale oo social media isticmaalo waliba caanka ah laakiin aan lamaanahooda kala kulmin qadarin iyo qiimaan aad u yacni u badbadan oo dhanka bulshada laakiin gabadhan maasha Allah ayadu waxay nasiib ku leedahay ninkeeda sida anaga ka aragno gudahooda ma ogin waa dad aad iyo aad iskugu faraxsan waana nin aad iyo aad ayadu inuu u jecel yahay laga dareemayo marka dad noloshaas yar oo qurxoon ku jirto ka xuna dabcan gabadhan daba dhigteen oo waxan qaabka daran ee beentan ka faafiyeen abaayo waxa ku leenahay Ilaahay wax walba haysata ku barakeeyo familygaaga iyo caruurtaada ku barakeeyo odagaaga familkii ku dhalay sheegtay in garab fiican ka heshay xiliyada adiga ku jirtay waa arkayno aabaha ku imaado farxadaada iyo rareentaada maasha Allah dadka bini'aadamkana iska ignore garay dadkan dhan waxa ka soo qaadaa inaysan jirin meel cidla dabcan way ku saameynayaan marka uurka leedana u sii jilacsan tahay yes laakiin had kadib inaysan ku saameynin hooyaa tahay ilmo yar haysata oo kuriinka sugayso soo noloshaada focus garay
أنا waxaan kuu qirayaa inaad gabar akhlaaq leh qurux leh maasha Allah oo role model ah oo ku dayasho mudan aad tahay.